guursadaan talada koowaad waxa ay tahay dadkan aad daba ordaysid waqti sii break ka qaado waayo haddii aad diqsiga iyo kaneecadaba waqti siisid tartiib wejigaaga soo fuulayaan waa iska dharbaaxi kartaa iyaga baa tartiib wejigaaga soo fuulaya laakiin haddii aad maanta dhan diqsiga iyo kaneecadiisaan ku haysid maanta dhan waa kugu dul wareegayaan adiguna waa dhibsanaysaa si dadkaani ay kugu soo raadsadaan waxa aad ka yaraysaa wicitaanka waxa aad ka yaraysaa rabitaanka waxa aad ka yaraysaa fariimaha aad u diraysid waayo haddaa mar walba wacdid fariin u dirtid rabitaan u muujisid waayo waxa ay gabayaan kaalintii ahayd inay iyaga ku soo raadiyaan habaqin waxaan ku xasuusinayaa wax walba aad maanta dareemaysid hadday murugo tahay hadday walwal tahay haddii aad adigu ka joojisid wicitaanka isla sida aad dareentay bay dareemayaan waayo bila aadan weeye qofku doono noqon karaa gabar bay noqon kartaa wiil buu noqon karaa waayo bila aadan baynu nahnay rabitaanku waynu ka sameeynahay talada labaad ee aan ku siinayna waxa ay tahay naftaada ku mashquul bila aadanku wuxuu u jecel yahay kuwa naftooda ku mashquulo maanta haddii aad ka fikirtid waxa aad ku labisanaysid maanta haddii aad ka fikirtid waxa aad cunaysid maanta haddii aad ka fikirtid waqtigaaga waxa aad ku mashquulinaysid waxa dhacaysa qofkii inuu rabitaan ku soo muujiyo waayo isbedel ayaa sameysay bila aadankuna wuxuu u jecel yahay kuwa isbedel ka sameeya haddii aad laakiin maanta dhan mobilka ku mashquulsan tahay aad fariin ka sugaysid waqtigii baa kugu dheeraanaya waqtiga markuu kugu dheeraato rabitaanka ayaa badanaya rabitaanka markuu u batana qofkii ayaa maanta dhan ka daba ordaysaa si ay taas dhicin waxa aad ku dadaashaa naftaada inaad ku mashquulshid wiil ohow ama gabar